halkani waa dugsiga sare Mudug oo ku yaal dhinaca Galmudug ee magaalada Gaalkacyo. Goobtan 2 sano ka hor waxay ahayd goob dagaal ay isku hor fadhiyeen ciidamo ka kala tirsan Puntland iyo kuwa Galmudug. Dugsigan wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay Puntland iyo Galmudug waayo ardayda dhigata waxay ka kala yimaadaan labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo ee waqooyi iyo koonfurta. Axmed Shacbi waa arday kamid ah ardayda dhigata dugsiga oo ka yimaada dhinaca Puntland waqooyiga magaalada Gaalkacyo. wuxuu TV-ga Galmudug mar uu ku booqday dugsiga Mudug waxa uu sheegay in ardayda dugsigan wada dhigata ay ka dhaxayso walaalnimo isjecel oo aanay shaqo ku lahayn siyaasadda iyo qabiilka. horta way jira waqtiyo aad u xindahayeen waqti midowga soo maray gobolkan bay ahaayeen laakiin maanta waxaad moodaa in laga soo kabtay oo waqtigii midowga laga soo baxay hadda wax dhibaato ama caqabada aan kala kulana ma jiro أول دور شخصيات خاصة هايين قلبيادو إسبار أي كدحتالي شعب ككلا إيه أردد يدمان وحسن مدح يلان دد ولا لاوان هاي يعني هادو حقبة كلام كنا وقت دكسيغان أو بقولال أردي أي ديجاتو أيال أساس سنة دي لبدو كوني تدبدا وحن هاتن أرديدو أي قاتان ما دوين كلا دوان ودكسيغان وأستان وياي استحقال كلابدا دينا أي مقالة iyadoo marka laga hadlayo nabadaynta magaalada Gaalkacyo iyo mideynteeda uu yahay waxa ugu wanaagsan ee tusaale looga dhigan karo xilligan. Xasan Cabdirashiid Maxamed oo ah maamulaha dugsigan ayaa ka warbixiyay taariikhda dugsiga iyo marxaladii adkaay uu soo maray iyo sida haatan uu yahay bar muhiim u ah nabadda iyo wada noolaanshaha dadka ku dhaqan labada dhinac ee Gaalkacyo ee wada dega. dugsiga horta sida aad sheegtay waxa uu ka kooban yahay magaalada labadeeda dhinac waxa uu soo maray marxalado kala duwan caqabadana uu la kulmay maadaama labada dhinac magaaladu ay ka kooban tahay arday ka kooban ay isku keenaysid caqabado waa la kulmaysaa oo xagga deegaanka ah iyo xagga bulshada intaba caqabadaha ugu weyn wax kale ma aha waxa waaye iskuulka horta wuxuu ku yaalaa meel u dhaxaysa labada meeloodba marmarka qaar waxaad la kulmaysaa jidadka oo xirmo oo ay mushkilada ka dhacaan hadda sida Gaalkacyo labadii sano barbalamada ka socdo dhan iskuulka saameyn weyn bay ku yeelatay laakiin alxamdulillah dadaal badan oo la sameeyay maanta iskuulku wuxuu marayaa nidaam aad u fiican heer sare ah uu marayaa. ardayda dugsiga ee ku nool magaalada Gaalkacyo koonfurteeda dhinaca Galmudug ayaa sheegaya in ayagu mar walba ay ku dadaalaan in ardayda kale ee walaalahooda ay ka yimaadaan dhinaca Puntland ee waqooyiga Gaalkacyo ay soo dhaweynayaan lana leeyihiin isdhexgal aad u wanaagsan. Nimco oo kamid ah ardayda dhigata dugsigan ee degan koonfurta magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa tilmaamtay in ayaga arday ahaan ay mamnuuc ka tahay siyaasadda. labada dhinacba ardayda ka imaata maanta ma isdhigi karo anaga saameyn nagu leedahay ama ayaga saameyn ku leedahay waa dad Soomaaliyeed aan ahanay dad Muslim aan ahanay meesha waxana keena waxay tahay qalin iyo buug oo kaliya. markii ay socdeen dagaaladii u dhaxeeyay Puntland iyo Galmudug waxay saameyn ku yeesheen dugsiga oo xilligaas ku xirmay taas oo hor istaagtay howlihii waxbarasho waxayna arintaasi walaac ku abuurtay ardayda sida uu mar kale uu sheegayo ardaygani waqtiga wajil laakiin waxbarasho yani hakad badan iyo caqabado badan oo naga galay waxbarashada oo gobolkan khaasatan laakiin hadda waa ka soo kabanay ma sha Allah alxamdulillah waxaan mudaa bulshada in hore u soconayso ay baraarugsan yihiin. haatan xaaladda magaalada Gaalkacyo isbedel weyn ayaa ku dhacay waxaana ka jira nabadeyn iyo isdhexgal dadka deegaanka isla garteen in la dhameeyo colaadda nabadana laga shaqeeyo sida uu sheegayo Mahdi Khaliif Nuur oo kamid ah odayaasha deegaanka. labada maamul wuxuu ku yaalaa meesha istiraatiijiyada ugu fiican oo magaalada geeskeeda runtii labada maamul baana ku dhiganaa runtii burburkii iyo waxay xilligii hadda labadan madaxweyne hadda dambe intii ay ilaahayna siiyay labadan madaxweyne Cabdullaahi Gaas iyo madaxweyne Xaaf runtii laba madaxweyne heshiis weey oo aad iyo aad aan ugu mahad celinayno runtii laba nin oo saaxiibo weey sidii labadaas nin ay xilka u fuuleena anagu runtii iskuulkeenan wuxuu ahaa iskuulka asaasiga ugu fiican. odaygan ayaa inkasta uu da' yahay waxa uu ka tirsan yahay ardayda dugsigan wax ka barata wuxuuna ka waramayaa mar kale faa'iidada waxbarashada in aanay da' ku xidhin. waxa igu dhaliyay aqoon la'aanta horta waa jahliga ugu koowaad oo wadankan haysta maadaama aan joogo Mudug
oo aan qof aan wax baran uusa ay tahay inuusa qof dambeeye u yahay wax aan ganacsi hadday tahay daawo uu gadanayo hadday tahay wax kastoo ay tahay oo problem naftadiida aqoon la'aantu inay aysa. Markii la doortay madaxweyne Xaaf ayay ahayd markii uu ballan qaaday inuu dhameynayo colaadda ka jirta deegaano badan oo Galmudug ay xuduud la leedahay sida xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Galmudug oo colaado ay ugu furnaayeen iyo waliba gobolada ay dariska la ah sida Puntland oo madaxweynaha uu ku guuleystay inuu xaliyo colaadahaasi iyo dagaaladii ka jiray. Madaxweyne Xaaf ayaa markii la doortay waxa uu ballan qaaday in uu dhameyn doono dhammaan colaadaha deegaanka ka jira xilligaas, waxaana xilligan muuqatay in gebi ahaanba colaadihii ka jiray deegaanada u dhow Galmudug ay xuduudda la leedahay sida tan Itoobiya iyo waliba tan Puntland in xilligan ay soo ilaadeen, waxaana gacan weyn ka geystay dadaalka uu u galay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Arrintan ayaana waxay tusaale weyn u noqon kartaa hadafkii madaxweyne Xaaf ee ahaa in gebi ahaanba la dhameeyo colaadii ka dhaxaysay dadka walaalaha ee wada deega xuduudda kala qaybiso Galmudug iyo Puntland. Cabdicasiis Cali Guuleed, Galmudug TV, Gaalkacyo.